السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada macadka tababarada iyo tiknoolajiyadda ee Bondo. Magacaygu waa Abubakar Naasir Cali. Maanta waxaan qaadan doonaa cashirkeennii afraad ee barashada Microsoft Excel 2010. Waxaan ku baran doonaa Cell Basics. Marka ugu horeyso Cellska waa waxyaabaha uu ka kooban yahay worksheetskeena ama halkan meesha aan ku shaqeynayno. Waana ka duwan yahay sida Word documentiga. godadadaas waxa loo yaqaanaa cell. Inta badan cellska waxa ku jiro content kala duwan sida waxa dhexdiisa ku qori karno qoraal, sidoo kale formulas, functions iyo formatting attribute. Marka ugu horeyso cellku waa laydigan ama laydi kasta sheetska ka mid ah waxa loo yaqaanaa cellka waa meesha iska jarayaan row column-ka iyo row-ga. sidoo kale cellka wuxuu leeyahay address ama magaca inta badan cellka addresskiisa wuxuu ka kooban yahay waa xaraf iyo number, taasoo ah column-ka iyo row-ga meesha iska jaraan. magaca cellka ama addresskiisana waxaa lagu soo bandhigaa halkan oo loo yaqaan name box. Su'aal godkan oo kale markaan doorto waa column B iyo row 4. sidaa awgeed marka cellkan magaciisu wuxuu noqonayaa B4 waxaana lagu soo bandhigayaa qaybtan name boxka loo yaqaan. intaas marka kasoo gudubno, markii aad cellka doorato cell walba marka god walba aad doorato wuxuu leeyahay address gaar ah ama magac gaar ah. intaa marka kasoo gudubno imaana marka sidee loo dooranayaa hal god ama hal cell. markii aad rabto cell inaad dooratid godadadan mid ka mid ah click markaad siiso sidaas ayaad ku dooratay cellka. sideen ku ogaanaynaa marka godkan inuu doorayn? waxaan ku ogaanaynaa borderka ama geesaha cellkan wuxuu noqonayaa bold, midab madow oo bold ayaa koraya. sidoo kalena column headingka iyo row headingka, tusaale hadda column-kan uu ka tirsan yahay iyo row-gan waxaa koraya highlight. then marka sidaas ku ogaanaynaa inuu noo dooran yahay godkeena. marka tusaale ahaan haddii godkan aan rabno click ayaan siinaynaa, halkaan oo u baahanahay click ayaan siinayaa. sidoo kale haddii aan rabno godadadaas inaan doorto waxaa isticmaali kartaa arrow keys. tusaale haddii aan right arrow kala isticmaalo wuxuu i tagi cellka loo yaqaan D4, wuxuu tagi E4, wuxuu tagi F4. sidaas ayaa ku dooran kartaa. haddii aad u baahan tahay hoos inaad aadana waxaad isticmaalaysaa down arrow. tusaale hadda wuxuu joogaa F5, F6. sidaas ayaan ugu wadi karnaa. arrow keys kaas isticmaali kartaa. haddii kale godka markaas aad u baahan tahay waxaa leedahay click. inta markaa kasoo gudubno waxaa kaloo jiro inaad keyboardkaaga haddii aad u baahan tahay midigta inaad u socoto inaad dhahdo tab mar walba wuxuu sameynayaa qaybta midig inuu ku wado. haddii aad dhahdan enter mar walba wuxuu sameynayaa inaad hoos u wado. markii hal god sidaasaa loo doortaa. sidoo kale multiple cells sidee loo dooranayaa? multiple cells markii la dooranayo ama godado badan waxaa loo yaqaanaa cell range. haddii aan u baahanahay marka mouse-keena waxaan siinaynaa click, then waxaan sameynaynaa calaamadaas white cross. markay noo soo baxdo ayaa waxaan sameynaynaa dragging. markaan sameyno sidaas ayaan ugu jiidaynaa. then marka wuxuu sameynayaa godado badan ayaa dooran. sidoo kale godado badan inuu doorin waxaan ku ogaanaynaa all godadadan geesahooda oo dhan waxaa koray bold oo taas ku muujinaysa in ay ku dooriyeen dhowr god. sidoo kale column headingkan intaan ayuu highlight saari, intaas wuxuu ku muujinayaa afartaas column in godada ka mid ay dooran yihiin. iyo sidoo kale rowskooda row 4 ilaa iyo row 9. kaas waxaa loo yaqaanaa marka cell range. markii aad dooranayso godado badan haddii rabna inaan ka qaadno god kale ama cell kale ayaan click iska siinaynaa.
sidoo kale waxaan isticmaali karnaa shiftiga iyo arrow keys inaan isla isticmaalno haddii aan u baahanahay dhowr god inaan doorano. intaas markaa kasoo gudubno marka godadada dhexdooda maxaa lagu qori karaa cellka dhexdiisa waxa lagu qoraayo waxaa loo yaqaanaa cell content marka wuxuu noqon karaa tusaale ahaan inaan ku qorno textiga waxaa la isku yaqaanaa tusaale ahaan numberkaas oo kale inaad text qoraal alfabeetada caadiga inaad ku qorto ama letters xarfo sidoo kale waxaan ku qori karnaa numbers sidoo kale haddii aan u baahanahay godka dhexdiisa waxaan soo gelin karnaa dates marka kuwaas ayaa waxaa loo yaqaanaa text. sidoo kale waxaa jira waxa loo yaqaano formatting attribute oo gadaal aan ka baro doono comments formulas iyo function godadada dhexdooda la soo gelin karaa. intaas markaa kasoo gudubno aan u imaana marka godka dhexdiisa sidee loo soo gelinayaa contents ama cellska gudahooda sidee loo soo gelinayaa content. marka ugu horeyso aan rabno inaan godadadan wax ku qorno sameynayna kow godka aad rabtid inaad wax ku qorto dooranaysaa. marka ugu horeyso wax sameynaysa godku sidaas ku dooran ayaa waxaan sameynaynaa qoraalkaaga kusoo qoraysaa kadibna waxaa leedahay tab haddii aad rabtid qaybta midig inaad u socoto. sidoo kale halkaan waxaan sameynaynaa full name oo kale qofkan magaciisa saddexan. sidoo kale haddii aan u baahanahay inaan wax soo gelino godka waxa kale wax kasoo geli karnaa qaybtan oo loo yaqaano formula bar. marka uu godku sidaa noo dooran yahay waxaan sameynaynaa qaybtan formula barkan tagayna formula barka marka aan tagno tusaale ahaan halkaan waxaan u baahanahay inaan kusoo qorno class. formula barka marka weli datadan weli ma soo gelin marka aan rabno marka bosk enter halkaan waxaa ku jira tigtaas ayaa ku dhufanaysaa oo enter ah datadaas geli cellkaas. haddii aad u baahan tahay inaad ka laabatana waxaa leedahay cancel haddii ku dhufano xogtii sidaas ay ku baxay. marka waxaan rabnaa inaan soo gelino waxaan qoraynaa columnka magaciisa kadibna tigtaan ay entertaas ay click siinaysaa xogtii ama cell contentigi sidaas ayuu kusoo galay. intaas markaan kasoo gudubno waxay nooga xiga marka godka wixii aan ku qornay sidee ugu tirtireynaa. habka ugu fudud oo aan godka ama cellka wixii aan ku qornay aan ku tirtiri karno waxaa waaye kow inaan doorano godka aan rabno inaan wax ka tirtirno. marka godka sidaas u doorano hadda waxaan doorno cellka A5 loo yaqaano date aan ugu jiro hadda taariikhdi haddii aan u baahanahay inaan kasoo tirtiro waxaan sameynayaa qaybtan waxaa imaanaya editingka anagoo home tab ku joogno editing groupkan halkaan wuxuu ku yaala clearkaas ayaan dooranaynaa click ayaan siinaynaa. clearka markaan click siino dan halkaan wuxuu ku yaala marka waxyaabihii aad godka tirtiri leed clear all waxa waaye all dhamaan wixii godka ku qoran dhan tirtir. clear formats waxa waaye haddii format kaliya ku samaysnaa formatka kaliya ka reeb. clear contents waxa waaye wixii gudaha ku jiro oo qoraalka tirtir. clear comments waxa waaye haddii wax comment ay ku jiraan ka tirtir iyo clear hyperlinks oo haddii waxyaaba link ay jiraan ka tirtir. marka hadda anaga waxaan u baahanahay date kaliya noogu qoran haddii dateka saarabna inaan ka tirtirno waxaan dooranaynaa clear content markaan doorano godkeena sidaas ayuu wixii ku jiro kaga baxaya. sidoo kale waxaan sameyn karnaa inaan doorano godka aan rabno inaan wixii ku jiro aan ka tirtirno waxaan leenahay right click markii aan dhahno menugana waxaan ka dooranaynaa clear contents. sidoo kale habka aad u tirtiri karto adoo isticmaalaya keyboardkaaga waa inaad godka aad doorataa. godka markii aad doorataana inaad keyboardkaaga aad ka taabataan oo aad ka riixdaa backspace markii aad riixdo qoraalkii ama wixii godka ku jira sidaas ayuu ku tirtirmaya. sidoo kale waxaa isticmaali kartaa keyboardkaaga deletekii asigana wax loo isticmaalaa inaad tirtirto wixii markaas godka ku qorna. intaas markaa kusoo gudubno waxaa inoogu xiga marka haddii multiple cell ama godado badan aan u baahanahay inaan hal mar wada tirtirno kow marka ugu horeyso waa inaad godadada dhan soo doorataa aad rabtid inaad tirtirto. marka godadada dhan aad soo doorato halkaan inaan ka imaano editing groupkan clear contents inaan ka doorano all waa noo tirtiraya.
sidoo kale waxaa kaloo samayn kartaa inaad right click dhahdo then aad doorato clear contents. sidoo kale keyboardkaagana waxaa ka samayn kartaa inaad delete aad dhahdo wixii oo dhan wuu tirtirayaa ama inaad ka isticmaasho backspace. intaas marka cashirkeeni barashada Microsoft Excel 2010 halkaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. cashirkeeni afraad barashada Microsoft Excel 2010 halkaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.